waddan ka mid ah waddamadan Yurub anigoo jooga ayaa maalin muxaadarada marka aan dhameeyay ayaa waxa ii timid waxay tahay gabar waxay tahay Abubakar oo waxaan rabaa si gaar ah inaan kula hadlo waxaan dhahay waxay tahay soo dhawow waxay tahay kadib Abubakar oo maalmahan waxaan dareemayaa waxay tahay murug waxaan dareemayaa waxay tahay walwal iyo cabsi mana ogi halka ay ka timid waxay tahay maalmahan xitaa salaadi ayaa igu adkaanaya salaadi xitaa يعني mararka qaarkii waan ilaabaya maxaa xal ah maxaan sameeyaa kadib waxaan ku dhahay waxay tahay walaasheedii maxaa ka fiican in aad i weydiisay su'aashaas iyo in aad ila tashanaysid waxaan ku dhahay waxay tahay walaasheedii salaada waa halka ay ku dhamaato murugta salaada waa meesha ay ku bilaabato farxada sababtoo ah waxaad la xiriiraysaa waxay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala salaad la'aan ayaa keentay iyo salaada in yani mararka qaarkii aad ka tagtid inaad dareentid walwalkan iyo cabsida iyo wix la mid ah oo dhan sababtoo ah salaada waxaad la xiriiraysaa waxay tahay boqorka bixiya farxada Ilaahay subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alayhi wasallam murug markay qabato salaada ay u ordi jiray sababtoo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قف كراع هنونكيغا إيا وناغا إيا صلاة إيا عبادة لما كل ما يو مروق إيا ولول إيا عبسي إيا وحلمتا لكن قفكي كجيسة هنونكيغا إيا وناغا إيا عبادة قفكي كجيسة إلا وحوليها إنو العغير أيو دريمية marka qof walba idaawanaya oo ciriiri dareemaya walwal iyo cabsi waxaan leeyahay waxay tahay sidee baad isku tihiin adiga iyo salaada mar walba ku dadaal salaada sababtoo ah salaada waa halka ay ka bilaabato nolosha oo dhan waa halka ay ka bilaabato raaxada iyo macaanka oo dhan nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu dhihi jiray waxay tahay arihna biha ya bilal nagu raaxay bilalow salaada murug markay qabato salaada ay u ordi jiray salaada waa raaxo ee ku raaxayso salaada